السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالوا مركوبات مرلبات بحلنا كسر هذا مركل شارب بالشو إن الله لا أنت هوري سبسكرايب وصارتنا وأمهد علينا أنت كلو صار دونتنا وضمها سنتين أيام لنا شارب بالشو عاو حكى لنا هدي لها إنه لبقى ضبط مهمة رئيس وزراء الجمهورية فدرال كاهي الصومالية ومانتي لكل مي golaha amniga qaranka iyo laamaha kala duwan ee u qaabilsan dawladda federaalka amniga sida booliska sirdoonka iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee militariga ra'iisul wasaaraha xagga amniga kala hadlay ayaa noo soo socota hadii Ilaahay idmo iyo hakad galay duulimaadyadii gobolada dalka Soomaaliya ee ka baxayay Adaacada International Airport garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho oo aadayay gobolada dalka Soomaaliya halkaas oo leeyahay waxay sameeyeen gadood shirkadaha diyaaradaha ayaga oo ka cabanaya cashuur saa'id ah oo gobolada iyo caasimadda dalkaba looga qaado haddaba waxaan isoo sii deyn doonaa haddii Ilaahay idmo labadaas warbixinood oo shaarib bishow caawinii hayo oo muhiim ah haddii Ilaahay idmo marka insha Allah biidnillaahi kariim mar walba shaarib bishow gambalka daaro oo la soco si aad nolol socotina waa adiga oo subscribe ka saarta si uu mar walba mobilkaaga iyo gurigaaga adigoo jooga shaarib bishow channel oo kugu soo dhaco haddana warkii Ilaahay hadduu idin hayna labada qodobaha ku soo dhawaada biidnillaahi kariim رئيس الوزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية إنجنير محمد حسين روبلي أيام ما أنت وحول لك المي لامها أمنية قرنكا سيدا بوليسكا ميليتريغا إيو نبسوغيدا قرنكا إيو إذا مدى أسلوبتا حبسيدا رئيس الوزراء وحوكا هاللي أو شاقي إن الهرقلين دونه لوان حدي إلهي إنو مركز صوماقا عابو قولها وزير هذا عصب سيدات دي القضب مهم كهايد أو كهاللي أو كساب سنة hirgelinta mashaariicda dalka ee xagga dhaqaalaha amniga iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho iyo isku xirka iyo isku keenida dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo sideedda qodob oo tiro badan ayuu ra'iisul wasaaruhu maanta wuxuu bilaabay in uu kala shiro laamaha amniga magaalada Muqdisho in gacan adag lagu qabto taasoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee dadka siyaasadda faallaya Soomaaliya ay sheegeen in uu yahay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ugu waxqabadka badnaan doona ee soo maray dalka Soomaaliya muddadii isbedelka siyaasadeed Soomaaliya uu ka jiray hanaanka dawladnimada ee Urdunkana uu ka hana qaaday dalka Soomaaliya dadka arrimaha Soomaaliya saadariya waxay leeyihiin Maxamed Xuseen Roble waa ra'iisul wasaarihii ugu wanaagsanaa ama wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed ee ugu hanka weyneed ee ay sugaysay xagga amniga dhaqaalaha iyo isku keenida ummadda Soomaaliyeedba muddo kooban wax uga qabta taasoo la saadaalinayo in sumcadda ra'iisul wasaaruhuna halkaas ay ka soo boodi doonto asaga oo noqon doona hogaamiyaha mustaqbalka ama madaxweynaha mustaqbalka ee dalka Soomaaliya haddaba maanta xagga amniga markii laga hadlayay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu taako u dabageli doono xagga amniga laamaha amnigana ula xisaabtami doono uusan noqon doonina la xisaabtan la'aan laamaha amniga iyo kuwo hadba shaqadooda sida habacsanaan la'aanta ah ee u qabsadaan aan looga hari doonin lana xisaabtami doono cid allaaliyo cidii waajibka loo diray ka soo bixi weydana shaqadeeda ay ku weyn doonto ama xabsi ay ku mudan karto haddaba waxaan soo jeedinayaa waa kana afayeenka xagga amniga oo ka hadlaya arrintaasi waxaa maanta inoo qabsoomay shirkani caadiga ah ee isbuuclaha ee arrimaha amniga oo maanta daadiinay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyaashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habeynta ciidamada qalabka sidaas ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray ra'iisul wasaaraha wuxuu tifaftir ballaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabka laga soo gali lahaa
magaalada caasimadda ah. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeenta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiskaba si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimadda. haddaba intaas kadib ra'iisul wasaaruhu shirkaasi halkaas maanta ku soo gabagabeeyay wuxuuna sheegay golaha wasiirada markii la soo magacaabo iyo wasiirka amniga qaranka in magaalada Muqdisho qaasatan ay wax weyn iska bedeli doonaan iyo guud ahaan dalka oo dhan amniga dalkana gacan bir ah lagu qaban doono. shacabka Soomaaliyeedna ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay ka sugayaan inuu noqdo halyeygii iyo geesigii siyaasiga ahaa ee u soo baxay ummadda Soomaaliyeed asagoo ku xisaabtamaya mustaqbalka iyo siyaasaddiisa si iftiimi doonta ee ku hogaamin doona dalka Soomaaliya muddo xileedkiisa marka uu dhamaado haddii Ilaahay idmo. dhinaca kale marka aadno garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa maanta ilaa shalay kama kicin wax diyaarado ah oo kuwa ah u safriyay gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya taasi oo ka dhalatay shaqaaqa ka dhacday gobolka Gedo qaasatan magaalada Doolow iyo canshuuraha looga qaado magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka ka qaado iyo canshuur kale oo saa'id ah looga qaado markay ka degayaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. garoomada kala duwan markay isticmaalayaan oo garoonka aad ka kacaan ayay waxay sheegeen in laga qaado canshuuro kala duwan taas oo aysan diyaaradaha wax interest ugu jirin ayaguna ay diidan yihiin dadka inay ku qaaliyeeyaan xagga safarada. haddaba wixii warar halkaa ka soo kordha insha Allah biidnillaahi kariim waan la socodsiin doonaa iyadoo oo marayaha guud ee garoonka Aadacadde International Airport uu sheegay in arrintaas la xalin doono insha Allah maalmaha soo socda sidoo hadalka u dhigay asagoo sheegay inay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaba ay isla jaangoyn doonaan canshuuraha laga qaadayo diyaaradaha iskaga goosha iyo falaadyada iskaga kala goosha gudaha dalka Soomaaliya taasi oo haddii shirkaduhuna ay lacag saa'id ku dalacaan dadweynaha ay noqon doonto sicir saa'id ah dadkuna aysan mari karin wadooyinka oo u jaban maadaama ururka al-shabaab ay wadooyinka fadhiyaan oo aysan jidadka Soomaaliya isku furnayn. haddii ku cusub tahay Shaariba Show intaas oo warkii nagu dhan insha Allah subscribe-ka soo sii saaro si aad mar walba insha Allah waa nala socotid wararka hadba ku soo kordha dalka Soomaaliya insha Allah biidnillaahi kariimna wararka Soomaaliya ku soo kordha doorashooyinka halkay marayaan siyaasadooda halkay marayso iyo hadba siyaasadda si kululaanaysa dalka Soomaaliyeedba Shaariba Show waa kala sii soconaysaan warbixinada iyo hadba barnaamijyada isdaba jooga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.